Allah u naxariistay waxa dalka Jarmalka habeennimadii xalay ku geeriyooday hoobalkii ku caanbaxay ku luuqaynta heesaha dabacsan jilida ruwaayadihii dhaxalgalka ahaa iyo samaynta alxamada ee Cabdi Cali Bacalwaan fanaanka ayaa lagu soo waramayaa inuu toddobaadyadii ugu dambeeyay ku xanuunsanayay isbitaal ku yaala magaalada Mainz ee dalka Jarmalka isagoo ku jiray xaalad miir daboolan ah sida ay xaqiijiyeen fanaaniin ehel iyo asxaaba sidoo kale warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa saqdi dhexe xalay baahinteeda rasmiga dadweynaha kula wadaagtay geerida fanaanka waxayna sheegtay dawladda Soomaaliya oo ka tacsiyeysay geerida fanaanka inuu haleelay fayruska dunida lafta dhuunta gashay ku noqday ee coronavirus wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya mudane Cismaan Abuukar Dubbe ayaa ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyay geerida fanaankii qaranka Allah u naxariistay Cabdi Cali Bacalwaan wasiir Cismaan Dubbe ayaa sheegay in fanaanku ka mid ahaa hal-abuurada ugu waaweyn oo qaranka u soo horay wax kasta isla markaana dhaxal lama ilaabaan uga tagay dadka Soomaaliyeed Bacalwaan waxa uu ku dhashay magaalada Wardheer ismaamulka Soomaalida wuxuuna ku soo biiray fanka Soomaaliyeed 1965 wuxuu ka mid ahaa tiirarkii uu fanka Soomaaliya ku taagnaa xilli uu tiyaatarka qaranka ee Muqdisho ahaa kan ugu soo wax soo saarka badan geeska Afrika xilliyadii barisamaadkii gaar ahaan toddobaadmeedii waxa ayna isla soo shaqeeyeen fanaanka hawlo ay ka mid yihiin Xaliimo Khaliif Magool Zainab Xaaji Cali Siigaale Qadro Daahir Cige Hiban Nuuro Sahro Axmed Jaamac Saado Cali Warsame Qadiijo Fooday Nuur Xasan Aadan Samatar Salaad Maxamed Shardi Salaad Derbi Saalax Qaasim Naaji Cumar Duule Cali Axmed Cali Cigaal Cabdi Tahliil Warsame iyo Cabdi Kariin Faarax Dhabarlow iyo fanaaniin kale oo roorayna ka mid ahaa hoobalku waxa uu ku luuqay heeso dabacsan oo isugu jira wadani iyo jacayl waxaana ka mid ah heesihiisa wadaniga ah hoobal Bacalwaan ku luuqay nin xilqaaday eedqaad oo ay kula lamaanayd xareeda Ismaaciil Duniyo ay heestii howlaha arlada haddii lagugu aamino ummadda u shaqeeyo adeega laga dhigay oo laftirkeeda ay Duniyo kula lamaan tahay haddii lagugu aamino ummadda u shaqeeyo adeega laga dhigo awoodiyo dulqaad ee xala'an ayaa laga rabaa waxaa kaloo ka mid ahaa heesaha uu qaado fanaanka adigoon tacliin dhigan caashaqan ku dhaawacay waxa uu ka dhigan yahay dhabar weyne jiilaal dadka oon la dhalay waxaa loo dhugmaystaa dhabadaad marayso aad ku dheelmanayso ha ku dhiiran jacayl ha u dhegtaagin hooya waana hees ka hadlaysaa dhinaca waxbarashada iyo jacaylka in aan la isku wadi karin heesaha uu la qaadi jiray fanaanada caanka Allah u naxariistay Sahro Axmed Jaamac waxaana ka mid ahaa laqanyada jacaylka nabadgelyo wadar yahay faraskaagii laga baday iyo barasho fanaanka oo goorsii horeysay wareysi siinay janaal ka mid ah kuwa Soomaalida oo dalka Jarmalka kula kulmay ayaa ka hadlay hanaankii uu fanka ku soo galay iyo farqiga u dhaxeeya fanka maanta iyo fankii hore waxa uu na sheegay in suugaanta Soomaalida loo qaybiyo tix iyo tiraab tixdii markii ay dhamaatana hadda tiraab loo bedelay heesihii isaga oo tusaalayaal nool ka bixiyay fanka ina yaro waxaana fan jecelo hees jecelo yana isagu soo saarayo yana dadaalaya xamar waan joogay ina yaro xamar joogaana oo aad dadaal badan wadana leedahay horta baalka mawduuciisa waxa weeye waa hob yani qofka waxa weeye isagoo sugay ayuu bugelaya baalka anagu yaraan baan u gali jiray anagu yaraan baan u gali jiray yaraan baan u geysay iyo dhalinyaro iyo fan jacayl baan u geeyay dad waaweyn ku xareysa aniga iga darano yani cirku tuuta noqday imka leeyahay heesaya marka suugaantu waa tixiya tiraab marka يعني تحدي وين لما تقول لك عدوان ما هيسو وقافية ده لهيدو لو أنا راح على هيدو عين كاسة تراب بس واحد تقول لك تراب تبى هذا واحد نقطة هيس
ama kuu sheega sheegi maysid baa kuu sheega intee ku sheega mina ku sheeg habartay ayaa joogta baleeganta mid baa inta soo istaaga wuxuu leeyahay kac jacaylka markaas wuxuu leeyahay weliba haddaan ogahay inaan sida ii jecel yahay waa horan heesa badan samayn lahaa allah u naxariistay cabdi cali bacalwaan waxa uu ka mid ahaa fanaaniintii ciidanka xoogga dalka la oran jiray oo madaxda u ahaa cismaan askari aadan xuseen ka hor dowladii kacaanka waxa uu ahaa heesaa mu'alif laxamiiste iyo weliba jilaag waxaana lagu xasuustaa doorkii uu ka qaatay riwaayadii qabrigii jacaylka laxamadiisa waxaa ka mid ahaa midkii uu saaray heesta afrika ay hurudoy oo uu alifay ismaaciil xirsi farxaan markii koowaadna ay qaaday saynab xaaji cali sigaale baxsan balse ay ku caanbaxday allah u naxariistay boqoradii codka xaliimo khaliif cumar magool afrikay hurudoy cadow ku herye hurudoy hadiyeyadaadi hurudoy hadba cunaye hurudoy hama la sara hurudoy hayin sidiisa hurudoy la hogaaminaya